insha Allah marbaad curaho rabbi soo xirin urdaado sida urubtiyo ubax qabdinaada arki doonta kama taagna muhiimadda weyn ee dal sida Soomaaliya ka soo kabanaya dagaal sokeeya ay u leedahay duulimaadyo caalami ah oo suurta galiya isku xirka bulshadeena iyo caalamka kale deganaanshaha iyo maamul wanaagga dalkeenu maanta lugaha la galay ayaa soo jiitay shirkado caalami ah oo ku dhiirada inay gudaha dalka ka shaqeeyaan sida Toyota, Apple iyo shirkadaha ugu caansan dhinaca duulimaadka intii ay jirtay dawladda ku timi rabitaanka shacabka ee hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waxa la gaaray guulo waaweyn oo sabab u noqday inuu laba jibaarmo horumarka wadanka ka tisqaaday soo celintii maamulka hawada iyo in garoonka aadan cadde ee Muqdisho uu shaqeeyo habeen iyo maalin ayaa keenay in shalay oo u dambeysay 41 sano kadib ay mar kale dalkeena dib uga shaqo bilowdo diyaaradda Ethiopian Airlines oo hadda kamid ah kuwa ugu casrisan ee ka shaqeeya Afrika imaanshaha Ethiopian Airlines waa duulimaadkii labaad oo caalami ah oo ka howlgala Soomaaliya diyaaradda laga leeyahay dalka aynu walaalaha nahay ee Turkiga ayaa sanadihii dambe si toos ah uga shaqeynaysay dalka kama saarna shacabka Soomaaliyeed dadaalka ay sameysay wasaaradda gaadiidka iyo duulista ee wasiirka ka yahay Maxamed Cabdullaahi Omar wasiir Omar oo ka turjumaya siyaasadda dawladda shacabka wuxuu xoogga saaray sidii dalkeena loogu soo jeedin lahaa indhaha dhammaan shirkadaha caalamiga ah ee ka shaqeeya duulimaadyada ololaha wasaaradda duulista ee Soomaaliya oo xambaarsanaa fariin ah in Soomaaliya ay haysato garoomo diyaaradeed oo caalami ah shaqeeya habeen iyo maalin lana sugay amaankooda ayaa soo jiitay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines oo shalay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho loogu qabtay munaasabad kooban oo lagu maamuusayay ka shaqo bilaabideeda Soomaaliya safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Nasruddin Mustafa oo ka hadlayay munaasabadda xarag jarka ayaa sharaxay waxyaabaha suurtagal ka dhigay in 41 sano kadib diyaaradda Ethiopian Airlines ay ka shaqo bilowdo Soomaaliya iyo muhiimadda ay leedahay bilowga duulimaadka shirkaddan waxay tusaale u tahay fulinta siyaasadda furfuran ee dowladda Itoobiya qaadatay taasoo ah isku xirka Afrika gaar ahaan bariga iyo East Africa Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba dal oo walaalo ah oo daris ah dadna isku xigo sidaa daraadeed waxaan ku rajaynayaa bilowga duulimaadka Ethiopian Airlines in ay fududeyn doonto xoojinta xiriirka isku socodka iyo midka dhaqaale ee labada dowladda maanta waxa ugu fudud oo lagu safro waa duulimaadka hawada Ethiopian Airlines waxay isku xiri doontaa Soomaaliya, Ethiopia iyo caalamka kale iyadoo hadda u goosho in ka badan 160 goobood dhammaan destination oo dunida ah daafurka munaasabadani waxay farxad weyn gelinaysaa inta jacayl Soomaaliya ay wadaysa marka waxaan leeyahay ambalyo iyo shaqo wanaagsan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada mudane Maxamed Cabdullaahi Omar oo ay wasaaraddiisu soo qaban qaabisay munaasabadda lagu soo dhaweynayay duulimaadkii ugu horeeyay ee Ethiopian Airlines ayaa soo bandhigay faa'iidada dadka Soomaaliyeed ugu jira duulimaadyada caalamiga ah ee noocan ah wasiirka ayaa sidoo kale sharaxay ama ka hadlayba duulimaadyada kale ee caalamiga ah ee la filayo dhawaan inay ka shaqo bilaabaan Soomaaliya runtii maanta mar inaan ku dheeraado waa maalin aad iyo aad muhiim inoo ah 40 sano kadib waxaa maanta inoo bilaabatay duulimaad isku xiri lahaa laba wadan oo walaala hadda waxay qaadanaysay maanta intii ka horeysay maalin idin in aad tagto Addis Ababa oo noo jirto 2 saacadood oo flight maanta wixii ka dambaysa insha Allah tacaala 2 saacadood gudahood ayaa lagu tagi doonaa in ay timaado diyaaradda Ethiopian Airlines oo diyaarad caalami ah kuma imaanin ganacsi oo keliya waxay ku timid shaqo badan amniga oo la sugo garoonka oo ay ku qancaan processkiisa diyaaradda Ethiopian Airlines iyo diyaaradaha kale dhammaantood markii ay noo yimaadeen diyaaradaha badan ee la soo tiriyay Ethiopian Airlines ka mid tahay waxaa xaqiiqo noqotay in processka aan marno iyo securitygeena iyo sida uu u shaqeeyo airportka iyo duulimaadka inay yihiin mid caalami ah oo amnigiisana uu runtii aad iyo aad u sugan yahay waxaana runtii u mahadcelinayaa maamulka garoonka ciidamada qalabka sida nabad sugidda iyo dhalinyarada airportka ka shaqeysa dhammaantood oo iska kaashato in airportka wadankeena ugu weyn caalamiga ah Muqdisho uu noqdo airport caalami ah oo amnigiisu uu ka sarreeyo meelo badan oo ka mid ah caalamka garoomada ugu horeeya inuu ka sarreeyo
diyaaradda Ethiopian Airlines maashaheeda waxay soo furaysaa laba wadan oo walaalo ah dad badan oo walaalo ah ee u dhexeeya ganacsi badan oo u dhexeeya marka waxay noo soo kordhinaysaa dhinaca dhaqaale inoo kordha labada dhinac waxaa intaasi inoo dheer ganacsiga u dhexeeya labada wadan oo sii kobcaya shaqaale badan oo laga shaqaaleeyo labada dhinacba dhinacan iyo dhinaca kale intaba waxaa kale oo aan rabaa inaan xaqiijiyo diyaaradaha badan ee soo kordhaya ee internationalka imaanaya in ay u fududeynayaan shacabka Soomaaliyeed in ay safraan dadkaas dowladani waa dowladii shacabka ay dad badan yiraahdaan ujeedadeedana waxay tahay in aan u sahlno shacabka Soomaaliyeed in ay safri karaan meesha ay u socdaan sida ugu sahlan ee qaymaha ugu sahlan iyo amniga ugu sarreeya saddexdaas inay heli karaan taas ayaa keenaysa marka diyaarad caalami ah internationally aad loo yaqaan amnigeeda fiican iyo servicekeeda fiican yahay in aan keenno ummadda Soomaaliyeed ay optionno u helaan inay jaanisyo u helaan meel alla meesha ay rabaan inay mari karaan inay Ethiopia mari karaan inay Kenya mari karaan Turkiga inay mari karaan iyo diyaaradaha kale ee soo socda dhammaan Ethiopian Airlines uma baahna inaan idin sharxo waa diyaarad caalami ah waxay noo u sahlaysaa Soomaalida degan wadamada la soo sheegay ee dibadda ah dhammaantood inay si sahal ah ku imaan karaan wadanka iyaga oo waqti badan aan ka lumin runtii waxaan u mahadcelinayaa Ethiopian Airlines iyo safiirka iyo wasiir ku-xigeenada iyo inta igala shaqeysay wasaaradda dhammaan macalin iyo abdiashkii ay ka mid yihiin sida sharafta leh ay noola shaqeeyeen waxaa kaloo xusid madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labadaba xil gooni ah iska saaray in diyaaradda Ethiopia oo shaqeynayso oo direct flight ka bilowda ay arkaan sida ugu degdegsiiyay haddii iyaga ay soo faragelin diyaaradda Ethiopian Airlines degdeg hadda ay ku imaanayaan kaliya ka sokow diyaaradaha ajnabiga ah ee dalkeena ka shaqo bilaabaya waxaa farxad weyn ah inuu marayo meel gabagaba ah dadaal ay waday dowladda Soomaaliya kaas oo lagu doonayo soo nooleynta diyaaradii Somali Airlines oo mar dhow si rasmi ah u shaqo bilaabi doonta insha Allah marbaad curaho rabbi soo xirin urdaado sida urubtiyo ubax ordinaada arki doonta